muslimiintii u hijrootay dhulka xabashada odayaashii Quraysheed waxa ay ka soo dabadireen 2 nin si muslimiinta dib loogu soo celiyo codsigoodii koowaad markii uu Najaashi nimankani uu dhageystay waxa uu sidoo kale uu dhageystay muslimiinta hadalkoodii aayadaha quraanka suurada kaaf haya caynsaad markii Najaashi lagu aqriyayna waxa uu muslimiinta uu ku dhahay dhulkani si nabadgelyo ugu noolaada marnaba Quraysh idinma celin doono guuldaradii marka ay nimankani ergada ahaa ee odayaashii Quraysheed ay soo dirsadeen marka ay la kulmeen 2 nin midkood Amr bin Caas waxa uu ku fakiray qorshe kale oo muslimiinta iyo Najaashi isugu diri karo subaxii xigay inta uu Najaashi u imaaday ayaa waxa uu ku dhahay boqorow dadka aad shalay soo dhaweysay ee inaguna aan u naqaano ducafo diintii bedelatay oo baadil ku sugan miyaad ogtahay Ciisa bin Maryam hadal aad u weyn oo aanan loo dulqaadan karin inay ka sheegaan Najaashina waxa uu ahaa qof Kirishtaan ah markaas ayaa waxa uu dhahay muslimiinta hal igu yeero si aan u ogaado hadalka weyn ee aanan loo dulqaadan karin ee Ciisa ay ka sheegaan muslimiintii maalintii labaadna markii lagu dhahay Najaashi ayaa idin yeerayo argagax iyo walwal ayaa soo gudagalay talow miyaa dib la idin celin rabaa iyaga oo alla tala saaranayo ayay Najaashi u soo galeen waxa uuna ku dhahay Ciisa bin Maryam maxaad ka rumaysan tihiin Jacfar ayaa muslimiintii u hadlay waxa uuna dhahay Ciisa bin Maryam waxaan ka rumaysanahay wixii nabigeeni uu inoola imaaday Ciisa waa rasuul alle uu soo dirsaday waana kelimada alle Maryama uu ku tuuray boqorkii Najaashi ahaa qorayar oo agtiisii yaalay inta uu soo qaaday ayaa waxa uu dhahay wallaahi ayaan ku dhaartay intani wax la eg xitaa kuma aydan xadgudbin markaas ayuu muslimiintii uu ku dhahay iska baxa dhulkani ku raaxaysta adinka oo aaminiin ah inta uu la taliyaashiisii uu la hadlay Najaashi ayaa waxa uu ku dhahay nimankani hadiyadahoodii oo dhan dib ha loogu celiyo 2 nin ee Quraysh ay soo dirsatay ee Cabdullaahi bin Rabiica iyo Amr bin Caas iyaga oo niyad jabsan oo wax natiijo ah aanan ka soo helin Najaashi ayay magaaladoodii Makka dib isaga soo noqdeen xaaladdu aad ay u qaraaraatay muslimiinta oo dhanna waxay u dhulkii xabasha boqorkii halkaa ka talinayna magangelyo ayuu muslimiintii bilaabay in uu siiyo odayaashii Quraysheed diintani wada looga hortagi karo oo la quman intaa kadib way waayeen ciqaabtii ay muslimiinta u geysanayeenna wax natiijo leh kama aysan helin muslimiintiisa xeelad cusub oo dhulka inay ka hijroodaan ayay bilaabeen diintii ay ka baqanayeenna odayaashii Quraysheed dalka dibadiisii ayayba ku sii faafaysaa xaaladdu marka ay sidaa tahay odayaashii Quraysheed si degdeg ah ayay u shireen sidii diinta faafitaankeedii lagu joojin lahaa waxa ayna dhaheen diintani halka ay ka soo bunqanayso ee Muxammeda waa inaan bilowgii isaga gacan adag ku qabanaa waa inaan dilnaa oo gebigiisii oo dhan aan soo ciribtirnaa muslimiintuna iyaga ayaa intaa kadib marka ay Maxamed waayaan diintoodii hore dib isaga soo noqon doona balse sidee ayaa Nabi Maxamed lagu dili karaa problem ayay ku noqotay haddii nabiga ay ku dhiiradaan ficilka foosho xun oo dilida ah inay ku sameeyaan xaaladdu sida ay u maleynayaan way ka sii weynaan kartaa ugu dambeyn odayaashii waxay isku afgarteen in adeerkiisii Abi Taalib ahaa inay u tagaan weliba kolkani si daran inay u canaantaan waa inaan ugu hanjabnaa Abi Taalib dagaal aad u weyn inuu ina dhaxmay doono haddii Muxamed gacan adag ugu qaban waayo odayaashii intaa kadib waxay u imaadeen Abi Taalib waxa ayna ku dhaheen Abi Taalibow waxaa tahay qof weyn oo da'a dhexdeenuna qof sharaf ku dhaxleh ayaa tahay wiilka aad adeerka u tahay ee Muxamedna xitaa diinta uu sheeganayo adiga ma aadan raacin ee wiilkaasi iyo diintiisuba adiga ayaan dacwo kaaga nahay waan kuu soo dacwoonay horaan waxba kama aadan qabanin intaa kadib Abi Taalibow kuma sabri doono in Muxamed ilaahyadeeni uu wax ka sheego adiguna inaad iska aamusto gacan adag ayaan isaga ku qaban doonaa ama haddii kale adiga iyo inaga oo odayaashii ah ayay wax ina dhaxmay doonaan midkeen midka kale ayuu haligi doonaa haddaba Muxamed haddii aad ceshan karto cesho ama haddii kale gacanteeni adag ayaan isaga qaban doonaa hanjabaadani Abi Taalib aad ay ula weynaatay qalqal aad u weynna way ku abuurtay Nabi Maxamed nabadgeli naxariis korkiisa ahaatee inta uu u yeeray ayaa waxa uu ku dhahay Muxamedow odayaashii Quraysheed ayaa ii imaaday sidaa iyo sidaana way igu dhaheen hanjabaadanina way ii raaciyeen
haddaba Muxammedow adigana wax dhib kuu keeni kara sidoo kale aniguna dhib ii keeni kara fadlan qoonta ha inoo gelinin yacni waxyaabahani aad wadda ka har qoomkaadii way dhibsadeen nebi maxamed nabadgeli naxariis korkiisa ahaatee markii uu abitaalib sidaa uu ku dhahay waxa uu u maleeyey in adeerkiisii garabkiisii uu ka baxay waxa uuna dhahay nebiga nabadgeli naxariis korkiisa ahaatee isaga oo ilmaynayo adeerkeegiyow haddii qoraxda gacanta midig ay ii saaraan bishuna gacanta bidix ay ii saaraan lagama yaabo amarkani aan ku suganahay yacni diinta in aan ka noqdo waxa uu ula jeedaa iska badaa wax kasta oo ay samayn karaan haddii ay ugu sameeyaan si uun diinta ay ugu diidaan heerka ugu adag wax ay awoodaan haddii xitaa qoraxda gacanta ay iga saari karaan maba awoodaane lagama yaabo in diinta aan ka tago isaga oo ilmaynay ayuu nebiga adeerkiisii abitaalib uu ka soo tagay markaas ayaa abitaalib nebiga intuu u yeeray isaga oo sii jeeda oo sii socda ayaa waxa uu u tiriyey tix yar oo gabaya waxa uuna u ballan qaaday in nebiga uusan isxumaynin garabkiisuna inuu ahaan doono quraysh wixii ay doontana ay samayn karto odayaashii quraysheed ugu dambayn marka ay arkeen abitaalib in nebiga garabkiisii weli uu yahay wax ay sameeyaan way garan waayeen haddii abitaalib ay u dacwoodaanna waxba kama uu qabanayo waxa ay ku fakareen talow abitaalib sababta uu Muxammed ugu haysto caawinaad iyo gargaar ama khidmuu uga baahan yahay daraaddeedii in ay tahay waxa ayna bilaabeen wiil inay u soo diyaariyaan Camaar binu Waliid binu Mugiira wiil loo yaqaano ayaa inta ay reerkiisii la soo heshiyeen ayay abitaalib u imaadeen waxa ayna ku dhaheen abitaalibow wiilkani quruxda badan ayaan kuu hibeynay waa wiil caqli badan oo kuu gargaaraya wax waliba oo aad doontana waa wiil kuu samaynaya innaga xitaa garabkaadii ayaan noqon doonnaa ee abitaalibow Muxammed wiilkani beddelkiisii inagu soo wareeji kadibna innaga ayaa Muxammed gacan adag ku qaban doonnaa damacoodii waxa uu ahaa odayaashani wiilkani ay keeneen in abitaalib nebiga uu ku bedeshto abitaalib inta uu la yaabay fikirkani ayaa waxa uu ku dhahay tani weligeed wax dhici karaa ma aha intaa kadib odayaashii iyaga oo quustay oo rajo dhigay ayay abitaalib ka noqdeen balse waxa ay bilaabeen kolkani in nebiga ay dhibaan meel walba ay ku arkaanna nebiga ayay wax ka sheegi jireen waxa ayna ku hamin jireen salaad markuu u istaago gaar ahaan marka uu sujuudsan yahay in madaxa ay kaga istaagaan dhibkani ay nebiga u geysanayeenna waa midka ugu dambayn sababi doona inay islaamaan laba haliyey oo kale ah Xamza binu Cabdilmutalib iyo Cumar binu Khadaab odayaashii carabtana lama filaan iyo shoog ayay ku noqon doontaa islaamida raggani maalin maalmaha ka mid ah Cutayba binu Abilahab inta uu imaaday nebiga ayaa waxa uu ku dhahay waxaan ku gaaloobay والنجم إذا هوى يدنا فتدلى كدبنا نبيغا انت uu qamiiska uu ka jiiday ayuu ka jeexay waxa uuna intaa nebigu ugu daray in xandhuf uu ku tufo markaas ayuu nebiga inkaaray Cutayba waxa uuna ku dhahay Allahumma sallid calayhi kalban min kilaabik ugu dambayn Cutayba isaga oo dad safarley ah la socda ayaa waxaa cunay libaax sidaa ayuuna ku dhintay weliba isaga oo dhahayo alleeleh kani waa midkii cuni lahaa waana midkii Muxammed uu igu soo inkaaray odayaashii carabta dhibka iyo jeesjeeska nebi Maxamed marnaba ma aysan dhaafin abijahal oo kale inta uu saaxiibadiisii dhex imaado ayaa wax uu oran jiray kulanka reer Quraysheedo Muxammed waxa uu caayay diinteeni diinta aabayaasheeni caqligeennuna waa uu caayay waxa uu inaga dhigay sida dad wax magarata oo asnaam caabuda dhexdeeni ayuuna ku dhex tukanayaa inaguna waynu daawanaa wallaahi ayaan ku dhaartay Muxammed maalin dambe dhexdeeni kuma uu dhex foorarsan karo ama igu caawiya ama garabkeygii ka baxa aniga dhagax aad u weyn inta aan qaato ayaan marka uu foorarsado madaxan kagaga dhufan doonaa odayaashii oo dhan waxa ay ku dhaheen waan ku difaacaynaa garabkaadii ayaanu nahay ee samey wixii kula quman abijahal maalin nebiga isaga oo salaad tukanaya ayaa inta uu imaaday dhagax weynna uu soo qaatay ayuu isku dayay in nebiga uu ku dhufto iyada oo odayaashii oo dhan ay daawanayaan isla markiiba markii uu damcay in nebigu u soo dhowaado abijahal dib ayuu cararay isaga oo dhagaxii tuuray oo baqanaya oo gariiray ayuu dib u cararay wallaahi looma dhowaan kara ayuu dhahay rati geel ah oo weyn oo weligay aanan arkin ayaa iga soo horbaxay angagax dartii haddii halkaa ilbiiqsi aan taagnaan lahaa
wuu i cuni lahaa. nebi maxamed nabadgeli naxariis korkiisa ahaatee markii uu salaada uu dhammeeyey waxa uu dhahay, waa malag haddii uu ii soo dhowaan lahaa abijahal isaga oo dhan ilbiriqsi gudaheedii waa la weyn lahaa. halkanise ha inoo joogto, waa inoo qaybta 12aad iyo muuqaalka xiga.